sirta guurku waa 7 waji saaxiib mid sideedaad ma leh waxa macquul ah haddii aad fahanto saxarla inaad ka ilmo dhasho waxa la yiri guurku marka hore wuu sina dhuuban yahay marka xiga wuu sina ballaaran yahay sida loo dhisaa qoys way fududahay balse sida loo dhaqaa qoys way adag tahay markay ku tiraa saxarla ifur waxay ka wadaa ifaham baby markay ku tiraa saxarla idhig waxay ka wadaa idhaq qalbi aday balaayo ku qaqaayirtay mooyee saxarla kaama dheera fadlan like share iyo subscribe noo saar youtube-ka Kamil Show sirta guurka ku sheegna bilaahi calayk war news nabde waxa dhaqi kara saxarla nin indhoola ah nin dagoola ah nin qalbiga qani ka ah ninan qab weynin nin dhageysta nin dulqaad badan nin dareema nin naxariis badan waxa burburiya qoys 4 qodob ay ka dheeroon isqancin la'aan xagga sariirta dhaqaalo la'aan kala fikir doonaansho xanuun xagga xiska malaha waan ku dheeraaday sirta guurka balan ku soo dhaweeyo bisha malabka waa bisha xiisaha xawaaraha xubbigu soo gudlado xabiibida iyo xayaatida afku ka xadxado ilaa xisaab xasilooni kalsooni la dareemo waxa lagu jiraa jawigan muddo sanad ilaa 3 sano 2 wajiga dhabta ah xilligan waxa soo ifbaxa qofka ka tahay bini aadan dabcigaaga dhabta ah jacaylkaaga dhabta ah quruxdaada dhabta ah waxa idin furma buug la magac baxay isbarashada dhabta ah ama waxaad noqon bashar dhaba ama waxaad noqon axmaq dhaba 3 wajiga isla yaabka iyo ismucaaridda waxa soo ifbaxa wajiga galdaloolaha labada dhinac iimo yar yar isku fiiqid gacan taagis khilaafyo xasaasi ah hadda yarsan la imo dabaxsanaan ku soo celi jawiga wada hadal si looga taqluso khilaafka waana inta u dhaxaysa 5 sano ilaa 7 sano markaad wada joogtaan lamaanahaaga 4 wajiga dib u qiimeynta xilligan waxaad wax ka barateen khilaafyadii hore idiin soo maray waxa abuurma jawi cusub awlaad cusub farxad reen iyo nolol cusub 5 dib u mudoobid hanashada awlaadda waxay kor u qaadaa isla markaana kubcisaa xiriirka lamaanaha farxad iyo guul waarta ah waxay siisaa ictiraaf xasilooni joogta ah 6 filo markasta qarax ma dhamaadaan caqabadaha guurka markaad in badan wada joogtaan waxa iman kara caqabado cusub sida dhaqaale darro caafimaad darro iyo wixii la halmaala guurku waa farxad iyo murugo joogta ah 7 dhamaystir caqabad kasta noloshu markaad ka soo gudubtaan idinkoo isku duuban isla markaana aragtaan ubadkay sii dhaleen waqtigu idinka dhigo 30 waxaad tihiin guulaystayaal jira oo jooga way dhammaystiran tahay noloshiina